Asalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha. Qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Lionel Messi oo baal dahab ka galay taariikhda kubadda cagta, kulanka West Ham United iyo kooxda Chelsea Blues oo raadinaysa guushii ugu horeysay ee Premier League, Lionel Messi oo koobkii ugu horeeyay ku hogaamiyay Inter Miami, Manchester City oo garaacday kooxda Newcastle, Real Madrid oo garaacday kooxda Almeria iyo Bellingham oo la joojin layahay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhasiina shargaray si barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina. Xalay waxaa la ciyaaray kulamo aad u xiiso badan oo ka tirsan tartanka horyaalka Ingiriiska Premier League. Manchester United ayaa guuldaro kala baxday garoonka kooxda Tottenham, waxaana Tottenham ay gaartay guushii ugu horeysay ee horyaalka Ingiriiska Premier League maadaama kulankii bilowga horyaalka Ingiriiska Premier League ay barbardhac ay gashay kooxda Tottenham. Manchester United ayaa guushii ugu horeysay horyaalka English Premier League waxay ka gaartay kooxda Wolves, taasi oo dadka falanqeeya ciyaaraha ay sheegeen in Manchester United kulankaasi loo qabtay kooxda Wolves. Manchester City ayaa sidoo kale waxay garaacday kooxda Newcastle United, kulan ka tirsan horyaalka English Premier League ay labada kooxood ku wada ciyaareen garoonka Etihad Stadium ee Manchester City. Inkastoo kooxda Pep Guardiola ciyaartoy badan ay ka maqnaayeen, Newcastle United ayaa waxay isku dayday in ay barbardhac kala tagaan garoonka Etihad Stadium, laakiin ciyaartoyda kooxda Manchester City ayaa kulankii xalay waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican oo u diiday ciyaartoyda kooxda Newcastle United in ay ciyaarta ku soo laabtaan oo barbardhac ay ku dhamaato. Laakiin kooxda Newcastle ayaa dhowr jeer sameysay fursad ay ku bareejeyn kareen goolka laga dhaliyay. Goolkaas waxa uu dhaliyay Alvarez waxaana caawiyay Phil Foden xidiga kooxda Manchester City. Liverpool ayaa dhankeeda waxay guul ka gaartay kooxda Bournemouth gool ay kala dhaliyeen Diaz iyo xidiga Mohamed Salah, waxaana Liverpool ay gaartay guushii ugu horeysay horyaalka Ingiriiska Premier League kadib markii kulankii furitaanka horyaalka ay barbardhac ay la galeen kooxda Chelsea, waxayna ay gaareen guushii ugu horeysay ee horyaalka English Premier League. Kastoo kulanka ay la ciyaareen kooxda Bournemouth uu kaarka roosaha ku qaatay ciyaartaasi xidiga khadka dhexe kooxda Liverpool ee McAllister, ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay guusha oo raacday kooxda Liverpool. Inter Miami ayaa ku guuleystay koobkii ugu horeeyay ee taariikhdeeda kadib markii ay garaaceen kooxda Nashville. Kulanka ayaa ahaa finaalkii ugu horeeyay ee Lionel Messi uu kala muuqdo kooxda Inter Miami, waxaana uu kooxda ku hogaamiyay koobka. Kulanka caadiga ah ayaa ku dhamaaday barbardhac iyadoo ay labada kooxood ku kala baxeen rigooryal. Ciyaarta 90 daqiiqo ayaa ku dhamaatay barbardhac 1-1, waxaana lagu daray ciyaarta 30 daqiiqo oo dheeri ah si loo kala saaro labada koox. Lionel Messi ayaa daqiiqadii 23aad goolka furitaanka u dhaliyay kooxdiisa ciyaartana ka dhigay 1-0, laakiin kooxda Nashville ayaa daqiiqadii 57aad ku soo laabatay ciyaarta kana dhigtay 1-1, waxayna labada kooxood isla aadeen rigooryal waxaana ay 19 guusha ku raacday kooxda Inter Miami, sidaasna ugu guuleystay Lionel Messi koobkii ugu horeeyay oo uu la qaaday kooxda Inter Miami. Guud ahaan waa naga intaa barnaamijka ciyaaraha. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhasiina shargaray si barnaamijkeena asxaabo badan u gaaro. Mahadsanidina.